dadka lagu laayay raaso waxayna wali helin cadaalad ciyaalkaas ma uuna helin cadaalad wixii aan diidanahay aan ka hadlaynaana waxa weeye wax aan mas'uuliyad iyo shacabka muxuu ahay u cuntanin weeye waxaan ka hadlaynay ee aan diidanahay ilmahooda dhiigii qaydkii lagu xambaaray xidhnaa rabay in lala kulmo in la siiyo raali gelin in xuquuq la siiyo in la tacsiyeeyo ayuu yiri lama kulmayo umana jawaabayo waxaad og tahay hoggaanka la leeyahay hoggaankan uu de wala macaamilo 3 bilood ba hor fadhiyay ninkaas qorshuhu wato qorsho maamul iyo qorsho dawladeed iyo qorsho aqli iyo qorsho cilmi midna toona qorsho qabiil oo cad weeyaan tan kale niman baa jira magaca reer gobolka shakhsiyaal ah ayaa jira nimankaas hadda Axmed kuwa la hadlay war arinta maxay idin geeyay arinta geediga aad ka sheekeynaysan waanu qaadanay iyo waxbaanu rari aad leedihiin maxay idin geeyay anoo waxbaanu rari maana oranay waanu qaadanay yaanu leeyahay inaana rari karina Axmed waad ogtahay haye lacagta deegaanka la boobi yaa la boobaynaa walaalayaalow aflagaadada hal naga daayay kala oo ka cabanayna xirayga iyo xasuuqa dadkii odayaashii maatidoodii la laayay ee cabasho u tagay Addis-Ababa ambalaasta sidii iyagoo meyd lagu soo xasuuqan ka cabanayna meesha degreedeen ka guura dadka la diiday arna hore dhacay weeyaan waxa ku xigtay in aroortii yaryarayd iyo haweenkii arintaas waxaa mudaharada ka sameeyay in amar lagu bixiyay in la laayo حواشي أنا جوجلي أنا ضدك عروضة عاسي كل ويني يضدك هواك هاي ما ترى نجحي أنا أسوق قولي أنا أقول لك تدين الحمارة أسوق waxaan ka hadlayaa qabalayowga annaga degan Rafiq Umar baan nahay codsanayna xukuumadda Mustafa Cagjar in ay naga daayaan colaada gacan ku rimiska ah ee ay ku dhaxwado bulshada Rafiq Umar dhexdeeda iyo dadka aan dariska nahay ee walaaltinimada aan ku wada noolnahay ninkii laaluush qaata ee ka hadlin awlaadii uu dhalay iyo ooridii caanaha lahayd ee aqalka ugu jirtay ninka laga laayay kii ka laayay uu hortaagan yahay haddana raali sidaa kaga aad buus baa la oran karaa Ahmed እኛ እንደሚታወቀው በክልል 5 የምንኖረው በዞን አፍዴር በራሶ ወረዳ የምንኖረው